Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada ardayda qiimaha iyo qaayaha leh. Halkani waa Sahan Academy, hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha. Waxaan ahay macallin Saciid Yuusuf Maxamed. Waxaan idin soo gudbinayaa qaybta labaad ee muuqaalada taxanaha ah ee aan kaga jawaabayno imtixaanka la qaaday sanad dugsiyeedkii 2020-2021. Maadada aan markaasi ka hadlayno waa geography. qaybta labaad waana direct questions way sida markaasi shaashada aad ka arki kartaba marka hadii markaasi aan eegno shaashada computerka qaybta labaad ayaa markaasi meeshan ku qoran oo weydiimaha soo socda ka jawaab ah ama answer the following questions ayaa halkan ku qoran ama ajib aan al-as'ila al-aatiya qaybta labaad way qaybta markaasi aan kaga jawaabayno hadii aan dib u noqono waa qaybtii koobaad muuqaalkii markaasi aan kaga soo hadalnay ama muuqaalkii qaybtii koobaad ahaa oo circle-ka markaasi ama doorashada markaasi aynu kaga jawaabaynay kuma sii dheeraanayno su'aalihi ayaan markaasi ka jawaabaynaa su'aasha koowaad waxa la yidhi sheeg laba ka mid ah astaamaha gibilka nololeyda waxaan leenahay yani marka 6 page ayuu ka kooban yahay imtixaanka marka anigu waxaan samaystay pages oo dheeraad ah si jawaabaha markaasi aan halkaasi uga bixiyo oo yani wax weey laakiin adiga waxaad kaga jawaabaysaa bookletka loogu talagalay ama nidaamka lagu keeno ayaad markaas u hoggaansamaysaa marka aniga marka asnood ahaan ayaa marka u isticmaalaa marka halkan waxaan ku qoraa jawaabo maadaama aan wax markaasi ka jawaabayo jawaabo ayaan markaasi leeyahay after that marka jawaabaha markaasi jawaabo waan markaasi qortay kadib marka su'aasha koobaad ee markaasi ka jawaaba oo waxaan leeyahay su'aasha koobaad oo kale waxa la yiri labo waxaan leeyahay labo kamid ah astaamaha gibilka nololeyda waxay kala yihiin kow waxaan leeyahay ba ayaa marka hore soo qaadanaa kadibna waxaan leeyahay nololeyda waxay meteleysaa qaybta nool waxa waaye qaybta markaasi nool ee deegaanka qaybta nool ee deegaanka ayaan markaasi leenahay qodobka koowaad kana soo qaadanayna qodobka labaad oo ta ah waxaan leenahay waxaa jira isdhaafsi markaasi waxaan leenahay carbon laba oxide isdhaafsi carbon labo oxide oo u dhaxeeya noolaha iyo manoolaha ku wada nool deegaanka su'aasha markaasi koowaadna halkaas ayaan markaasi kaga gudbaynaa haddii markaasi aan aadno su'aasha markaasi labaad waxay markaasi leedahay sheeg ama kala saar noocyada dhirta dabiiciga ah waxaan leenahay sadar cusub ayaa markaasi leenahay su'aasha labaad dhirta dabiiciga ah waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood qaybood waxayna kala yihiin 3daas qaybood ba ayaan markaas leenahay ilaa kala saar ayaa markaa la yiri waxaan leenahay kaymaha waa qaybaha markaas ugu balaaran marka kaymaha waxaan leenahay waa qaybta ugu weyn uguna muhiimsan qaybaha dhirta qodobka ba inta ayaan kusoo koobaynaa ta waxaan leenahay waa haramaha waay yani harame ayay markaas leenahay harame waxaan leenahay wuxuu ka baxaa meelaha uu ka do'o roob yar oo aan ogolaanaynin inay ka baxdo waxaan leenahay inay ka baxdo
geedo waaweyn. So waxa waaye geedo waaweyn. ja ayaan markaasi leenahay waa caws way nooca marka saddexaad oo markaasi ja ah. noocyada dhirta markaan ka hadlayno nooca saddexaad waxa la yiraahdaa waa cawska way. So marka cawska marka aan qeexayno waxaan markaasi leenahay isagu waa dhir gaagaaban. waa dhir gaagaaban oo kala jaad ah taa oo ka baxdo meelo kala duwan oo waxa waaye meelo kala duwan oo dunida ka mid ah. dunida ka mid ah. Okay, marka su'aasha labaadna halkaas ayaan markaas ka gudbaynaa. Su'aasha saddexaad waxa la yiri loolalku waxay ka muhiimsan yihiin dhigaha. Sheeg sababta. So aan eegna marka su'aasha saddexaad ayaan markaasi leenahay. Okay, su'aasha saddexaad waxa la yiri loolalka aan dhahna marka loolalka waxay ka muhiimsan yihiin dhigaha. Way ka muhiimsan yihiin sababtuna waa loolalka aan markaasi soo socono. loolalka waxay muhiimadooda ama diiradda saaraan roobabka iyo cimilada, halka dhigaha ay keliya diiradda saaraan ogaanshiyaha iyo kala duwanaanshiyaha waqtiga. So waxa waaye su'aasha saddexaadna halkaas ayaan markaas ka gudbaynaa. haddii markaasi aan eegno su'aasha afaraad waxa la yiri oogada dhulka Soomaaliya waxaa loo qeybiyaa 3 qaybood. cadday ama sheeg saddexdaas qaybood ayaa markaas la yiri. So waxa waaye haddii markaasi aan eegno oogada dhulka 3 qaybood ee markaasi loo qeybiyo waxay kala yihiin kow waxaan leenahay ama qaybta jawaabaha ayaa markaasi aan tagaynaa. waxaan leenahay kadibna marka aan jawaabaha aan tagno. Okay, marka hore aan tagno jawaabaha. Okay, su'aasha markaasi afaraad ee markaas leenahay oogada dhulka Soomaaliya waxaa loo qeybiyaa 3 qaybood waxayna kala yihiin saddexdaas qaybood haddii aan cadeyno oo aan kala sheegno waxay kala yihiin jiida dolaha ah yani meelaha taagaga ah way yani qaybta koowaad way. qaybta labaad waxa la yiraahdaa jiida banaanada iyo jiida markaasi buuraleyda ah. waxaan leenahay jiida banaanada iyo jiida buuraleyda ah. So waxaan eegaynaa markane waa su'aasha markaasi shanaad. Okay, su'aasha shanaad oo kale haddii markaasi aan ku noqono waxay markaasi ayadu ay leedahay qor 3 ka mid ah waxyaabaha aadanaha la xiriira ee saameeya filiqsanaanta markaasi dadka. So waxa waaye qodobadaas ayaa markaasi aan sheegaynaa oo yani bini'aadanka in uu meel ku baaho waxyaabaha markaasi saameynta ku leh. asal ahaan waxa waaye in uu meel ku bato bini'aadanka waxyaabaha saameeya aaday u badan yihiin. ha yeeshee kuwa ugu muhiimsan ayaa markaasi aan markaasi halkan ka qoraynaa. haddii markaasi aan eegno yani qaybahaasi oo markaasi ah kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah oo aaday u badan yihiin. waxa ugu muhiimsan arrimaha caafimaadka guud, kororka dadka. aniga marka waxaana la weydiiyey 3 ka mid ah. So waxaan leenahay 3 ka mid ah. Okay, qaybta jawaabaha ayaa markaasi aan tegaynaa. qaybta jawaabaha. So waxaan leenahay 3 ka mid ah waxyaabaha saameeya waxyaabaha aadanaha la xiriira
saameeya filiqsanaanta dadka waxaa ka mid ah yani 3 ka mid ah markaas la diray qodobka koowaad waxa waaye arrimaha caafimaadka guud ilan meel hadii caafimaad markaasi dhakhtar uu joogo oo yani qofkan meel walba uu ka xanuunsado uusan dibad u aadeynin yani waxa weeye dadka meesha inay u bataan waa mid ka mid ah asbaabaha waay sidoo kale waxaa ka mid ah kala duwanaanshiyaha noolaha oo luntay sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha saameeya dadka in ay markaasi meel ku bataan oo haddana aadanaha kuwa markaasi la xiriira waxaa ka mid ah baabi'inta dahaarka ozonka iyo baabi'inta dahaarka ozonka okay su-aashan hadda halkaas ay markaas ka gudbaynaa su-aasha markaasi lixaad oo kale ayaa markaasi aadaynaa waxay markaasi leedahay su-aasha lixaad okay waxay leedahay waa maxay farqiga u dhexeeya tamarta la cusboonaysiin karo iyo tamarta aan la cusboonaysiin karin markaan eegna marka farqiga u dhexeeya tamarta la cusboonaysiin karo iyo midda aan la cusboonaysiin karin waa farqiga u dhexeeya marka qodob koowaad aan soo qaadanaynaa tamarta la cusboonaysiin karo ilan waa inaad wax tacbiirin kartaa waa tamarta dib loo isticmaali karo oo la isticmaali karo isla markaana iyada laga dhalin karo tamar kale sida petrolka ilan waxa waaye waa tamar yani la cusboonaysiin karo wax bale tamar kale iyo markaas laga dhalin karaa tamar koronto iyo markaas laga dhalin karaa tamarta aanan la cusboonaysiin karin waa tamarta waxaan leenahay waa tamarta keliya hal jeer la isticmaalo sida tamarta dhuxusha oo kale hal mar keliya la isticmaalaa oo yani wax mar haddaad isticmaasho oo ay dambas ay noqoto dib dambe looma isticmaali karo oo halkaas ay markaas ku egtahay sidaas daraadeed marka iyadu waxay kamid tahay tamarada aan markaas la cusboonaysiin karin haddii markaasi aan eegno su-aasha markaasi toddobaad waxaa layidhi soo jeedi hababka lagu xalin karo dhibaatooyinka magaalooyinka okay marka halkan ayaa markaasi aan ku qoraynaa okay su-aasha waxaan leenahay toddobaad hababka lagu xalin karo dhibaatooyinka deegaanka waxaa ka mid ah kow in la fogeeyo waxyaabaha qashinka ah ee ay soo saaraan warshadaha magaalooyinka qodobka koowaad waxaan leenahay waa qodobkaasaan u qaadanaynaa qodobka labaad oo kale waxaan leenahay isaguna yani waxyaabaha markaasi ama qodobka labaad waxaan leenahay in la sameeyo wacyigelin la xiriirta muhiimadda deegaanka marka labadan qodob ayaan markaasi isaga soo koobaynaa so waxa waaye haddii markaasi aan halkaasi ka gudubno ama aan halkaas kaga gudubno su-aalaha markaasi qaybta koowaad ahaa oo 7 su-aal ee hore pagekan ayaa markaasi aan kaga jawaabnay pageka kale ayaan markaasi aadaynaa su-aasha markaasi 8aad waxaa la yidhi tiri heerarka qorsheynta xuduuda siyaasadeed
وسؤال مركزي سديدات واي وهو حدود سياسات marka la sameeyo waxay martaa xeerar markaasi kala duwan sida markaasi manhajka ba markaasi ku qoran marka aan tirinayno heerarka xuduudda siyaasadeed ilaa iyo 4 heer ay markaasi ay martaa marka waxaan leenahay halkan ayaa markaasi ku qoranaynaa waxaan leenahay okay su'aasha sideedaad okay heerarka ay okay ay marto xuduudda siyaasadeed waa يعني وأفر هير وحينا كلا يهين أفر هير هذه مركزي أنقرنا قيحد أما قيحد أما قيحد قضب كوات أنا قضب عن أسمينه قضب كوات أما باء وحلانا هاي قيحد iyo qorsheyn way yani heerka koobaad waa qeexid iyo qorsheyn heerka labaad oo ta ahna waxa way go'aamin in markaasi la go'aamiyo heerka markaasi ja ahna oo saddexaad waxa way waa tilmaamid way halka heerka markaasi afaraad oo xa ahna ba ta ja xana uu yahay baxay maamulka xadka xadka iyo markaasi uu noqonayo waxa way sideedaad halkaas aan kaga gudbayna sagaalaad waxay markaasi ku leedahay hadii markaasi aan ku noqono yani waxa waaye okay waxay leedahay sidee Soomaaliya oo la dhaqantay waxa waaye dalalka deriska la ah si loo xaliyo dhibaatooyinka la xiriira gobolada markaasi laga haysto marka Soomaaliya markii ay markaasi xalinaysay dhibaatooyinka la xiriira gobolada markaasi laga haysto yani qaab kala duwan ay markaasi ula dhaqantay ilaa iyo waxa jirto saddex qaabood oo waaweyn oo ay markaasi ula dhaqantay yani waxa waaye dalalkii markaasi deriska la ahaa waxaan leenahay Soomaaliya okay Soomaaliya waxay waxa waaye waxay ula falgashay waxa waaye aan eegno su'aasha marka Soomaaliya waxay ula dhaqantay deriska ah Soomaaliya waxay ula dhaqantay dalalka deriska la ah si dib loogu helo aan eego marka okay si loo xaliyo dhibaatada la xiriirta waxa waaye dhibaatada la xiriirta maxay gobolada laga haysto okay si yani waxa waaye deriska la ah si loo xaliyo dhibaatada la xiriirta gobolada laga haysto qaabka ay u xalisay waxay markaasi ay noqotay ilaa iyo 3 procedure ay martay qodobka koowaad wuxuu ahaa talaabo la xiriirta sharciga yani waxa waaye maxkamadda ay markaasi la tagtay talaabo la xiriirta sharciga okay dadkii ayaa codeyn markaasi sameeyay waxa waaye waxa markaasi ay noqotay talaabo diblomaasiyadeed okay qodobka markaasi jaane wuxuu markaasi yahay talaabo ciidan si loogu celiyo talaabo ciidan si loogu celiyo ma loo soo celiyo gobolada maqan meelaha qaar dagaal ay ku qaaday loo soo celiyo gobolada maqan sida markaasi Ethiopia oo kale 77 waxay ku qaaday dagaal marka qaabkaas ay markaasi Soomaaliya ula dhaqantay su'aasha kale tobanaad waxay markaasi ku leedahay hadii markaasi aan eegno maxaa lagu qeexaa ama loola jeedaa tamar marka tamarta marka aan qeexayno yani waxa jirto tamar iyo hawl waxa waaye in markaasi la fahmo tamar waa waxa waaye waa energy waaye hawl waxa waaye
waa force haddii markaasi aan eegno su-aashaasi oo tamar iyo hawl farqiga markaasi ama tamar waxa loola jeedo so marka waxaan leenahay jawaabta iyo markaasi ama qaybta jawaabta iyo markaasi aan tegaynaa waxaan leenahay tamar waxa loola jeedaa tamar waxaa loola jeedaa awoodda lagu qabto shaqo ama hawl ayaa markaas la yidhahdaa so marka 10ka su'aal waa kuwaana qaybtana marka muhiimay ku tahay ilan qaybtan kaligeed ayaa waxaa lagu saxaa 60 darajo oo hashii su'aalbo waxa saaran 6 darajo sidaas daraadeed marka waxaan filayaa in qaybtan wax badan markaas laga fahmay haddii ay jiraan meelo aadan fahmin waad isoo weydiin kartaa haddii ay jiraan meelo aan qaldayne waad markaas isixi kartaa adigoo igala soo hadli kara lambarka WhatsApp-ka qaybta hoose markaas kaaga muuqda ilan bini aadan ahay aadanuhuna waxa astaan u ah in uu qaldoomo ilan ereyga insaan markaad eegto waa illusion way so marka waan ilaabi karaa ama su'aal qaabkaad u fahantay ayaan qaab kale u fahmi karaa oo aadana ayaan ahay laakiin waxaan rajaynayaa in wax badan oo markaasi dadaalka ay geliyay in wax badan markaasi laga guran doono miraha yani waxyaabaha aan soo gudbiyay markale waan kugu soo dhaweynaa Sahan Academy haddii ay jiraan baahiyo kale oo maadooyin kale ahna waad markaas soo weydiin kartaa oo waxaan isku dayaynaa in aan raadino macallimiin u soo bandhigta waxbarashada qaab markaasi digital ah oo casri ah sida inta badan aniga markaasi aan isticmaalaba juqraafi iyo taariikh aslan waxa waaye takhasuskayga ma ahan waa biology iyo chemistry yani qaybta gaarkii ah iyo kulliyado kale oo markaasi la xiriira way jiraan waa kugu soo dhaweynaa Sahan Academy mar kale waa muhiim marka muuqaalkan inaad like saarto si uu u gaaro asxaab badan ayna markaas uga faa'iideystaan intaynu kusoo gabagabeynaa muuqaalkii aan kaga jawaabayay qaybta labaad qaybaha imtixaanka maadada juqraafiga fasalka form 4 sanad dugsiyeedkii 2020-2021 intaynu ku kulmi doono muuqaalkan muuqaal lamid ah waxaan idinkaga tegaynaa siday nabadiino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh